isku soo noqod wanaagsan asxaabteeda ku xiran bogga TikTok-ga Firdawsi Maxamuud Sahal waayahanba waan ka maqnaa inaan wax ka iraahdo sheekooyinka jilayaasha Turkiga oo aan in badan diiradda saari jiray halkaan idinku soo gudbin jiray codsiyo badan oo iga yimid dad badan oo asxaabteeda oo ugu xirnaan jiray ayaan go'aansaday bal inaan dib ugu soo laabto sheekooyinkaas waxa aad loo soo codsaday oo mar walba la soo codsaday oo dad badan oo actariin oo aan ka soo hadlay mar walba commentida lagu soo codsaday ninka la yiraahdo San Yaman ama Can Yaman marka waxaan eegaynaa sheekada Can Yaman ayaan eegaynaa wiilkan waxa uu dhashay 8 bishii November 1989 ninka ma yara aad ugu wareeriseen waa jila sidoo kale waxa uu haystaa ninkaani bilada la yiraahdo Golden Butterfly Awards ee laga bixiyo Turkiga waxa uu mar noqdaa la leeyahay actorka ugu wanaagsan ee dhinaca jacaylka marka macnaha wax la jilaayo dhinaca jacaylka iyo sidoo kale shactirooyinka ama qosolka sanadka 2018 markaas oo door ku lahaa filimka la yiraahdo Erkenisi oo si weyn uga soo dhex muuqday filimkaas oo la daawanayay 2019 ilaa 2020 aqoontiisa iyo shaqadiisa hadii aynu eegno waa jilaa waa model waana lawyer ay leeyihiin 2013 ayuu si weyn u soo shacbaxay oo shaashadaha uga soo muuqday wiilkan sidoo kale ayeeyadiis dhashay aabiis ayaa waxa ay ka soo jeedaa dalka Kosovo waxa ay ka soo gashay la leeyahay dalka Albania sidoo kale waxa la leeyahay ayeeyadiis dhashay hooyadiis ayaa iyadana sidoo kale waxa ka soo jeedaa Albania waxa ay ka soo gashay la leeyahay Koonfurta Macedonia marka ninkan asagaaba waxa uu ka socdaa 10 wadan oo caalamka ah waaba nin aan Fariis la gali karin oo Turki kaliya iska dhalama sidoo kale wiilkani filmo badan oo jilay waxa uu ka haystaa shahaadooyin jaysooyinkiisa ama abaalmarinadiisu aad ayay u tira badan yihiin waxa uu haystaa Best Romantic Comedy Actor oo ka qaatay taxanaha la yiraahdo Dulaney sidoo kale waxa haystaa Best TV Kamal dhinaca noloshiisa gaarka ah hadii aynu eegno iyo sidoo kale sawirada la baahiyay waxa uu xiriir la leeyahay gabadha la yiraahdo Dilatta Leotta waa gabar ka soo jeeda dalka Talyaaniga gaar ahaan Seychelles ay ka soo jeedaa waa wariye dhinaca ciyaaraha ah oo ka tirsan telefishinka lagu magacaabo Sky Sport ayay dhinaca kubadda cagta u qaabilsantay waliba ay aad u tabisay ciyaarihii Serie A ka socday channelka Sky Sports waxayna ku guuleysatay bilado laga soo bilaabo 2018 bishii Agoosto ilaa dhamaadkeedii ayay gabadhaani ku howlaneyd ciyaarahaasi sidoo kale waa wariye aad loo tixgeliyo marka la joogo Seychelles dhinaca radio-ga barnaamijyo ay soo saartay oo kubadda cagta la xiriira ayay ku guuleysatay abaalmarino dhowr ah marka waxa la leeyahay waxa uu xiriir la leeyahay gabadhan wariyaha ah ee ka shaqeysa Sky Sports iyo sidoo kale waxa la shaqeysaa xarumo kale oo ay sidoo badan la shaqeyso marka waxa la leeyahay dhinaca Turkida waa uu ka booday oo hadda dhinaca Yurubta kale ayuu ku howlan yahay jilaagan caanka ah ee aad soo dalbateen